بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور اتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة النحل سورة الله إلى ayaynu insha allahu ka bilaabaynaa. intaynaan se bilaabin waxaynu raacin lahayn aayaddaa suuraddaa u dambaysa 95 suuratulxijri u dambaysa. ilaahay baa waxau yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin. waxaan kaaga filaaday nebi maxamedow kuwa kugu dheeldheelaya. almustahzi'uuna bilxabiib sala allahu calayhi wasalam min alkufaar, nimanka gaalada ahaa ee nebiga ku dheeldheelay sidaa ilaahay uu ballan qaaday. ilaahay waa kaga filaaday. ficilku sida uu yaalla ad arkayso waan kaaga filaan doonaa maahee waan kaaga filaaday weye. arrintanina weli may dhicinba wakhtiga aayaddu ay soo degayso. nimankan ilaahay ma khaarajininoo waddada kamuu duwin subxaana. laakiin sidaa aayadda ilaahay uu ku ballan qaaday sida lafteedii bay u dhacday. 12 nin oo nimankaa ka mid ahaa ayaa ugu sii caansanaa kuwa rasuulka ku jeesjeesi jiray calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid ahaa ninka la odhan jiray abulahab, magaciisu cabdulcusa bnu cabdilmudalib u ahaa. waa nebiga adeerkii, nebi maxamed adeerkii bu ahaa. laakiin de adeer wuxuuna ku ah kii iimaan idin walaaleeyey. haddii aan iimaankaasi jirin tudhaale ma jiro. laa yarqubuuna fii mu'minin ilaa walaa dimma. ilaahay baa tilmaamay qofka gaalkii inaanu qofka mu'minka ah ku xaq dhowrayn xigto iyo ballantoona. ninkan abulahab la yidhaahdo dee suurad qur-aanka ka mid ah ay ka warrantay, suuraddaa tabat la yidhaahdo. waxau ahaa albaabka rasuulka sala allahu caleyh wasalam gurigiisa uu ka soo galo ayuu saxarada iyo wasakhda si ugu turunturoodo ayuu dhigi jiray. ninkan isagaa dee qur-aankaa suuraddan baaba ilaahay isaga iyo habartiisa inkaarta qabtay ayaa ilaahay ugu hanjabay. wuxuu u yaboohaya naaraana u yaboohay. tabat yadaa abi lahab laga bilaabay ilaa suuradda aakhirkeeda. aakhirkii ninka ah xanuun aada u xun oo kansalka noociisaabaa googooyey. sidaasaa sida ilaahay uga filaaday uu noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam. mustahzi'iinta waxaa ka mid ahaa ninka la odhan jiray alwaliid ibnu lmuqiira. waliid ibnu muqiira ninkii kaartada iyo hadalka iclaamka u dejin jiray buu ahaa qurayshta, ee odhan jiray waxaad tidhaahdaan maxamed waa saaxir, waa shaacir,
waa kaahin waa kadaab waxyaabaha ayuu la qimi jiray wuxuu oran jiray wufuuda carabta ee xajka iyo umrada imanaysa sidaa ku dhaho saa ku dhaho saa ku dhaho waxa kamid ahaa nimanka Abu Jahl Amr ibn Hisham ninka isagana la oran jiray sida macruufka ah laba inaan oo daadooda aad u yar yar tahay oo dhalinyaro ahaa ayaa laba seefood oo degdeg isu raaciyay maalintii Badr markii naftu haysay uu aad u ildaray sakaraad ahaana ragii u dhibi jiray mid kamid ah Abdullah ibn Mas'ud la oran jiray baa u yimid oo garka saa u lululayay arma Abi Jahl baa maanta jiifa waa isagii buu laakiin de qola carbeed un bay dishoon isku qola ahayn buu wax kale ma jiraan sida Ilaahay ugu filaaday waa sidaa weey ninka oran jiray buu ahaa wardadii uu dhageysto haduu Muhammad aaya ilaahiyadiina isaguna ilaahay sun caayeen kuna arinku waa markaas uu soo ururayaan waa ka Ilaahay soo dajiyay subhanahu wala tasubbu alladheena yad'una min duni Allah fayasubbu Allah adwan bighayri 'ilm Nadr ibn al-Harith ninka la oran jiray baa ka mid ahaa nimankan eeraanta iyo qoliyaha boqortooyooyinka sheeka xariirtooda iyo khuraafaadka intuu akhriyo halkuu nabigu quraanka akhriyo intuu daba fariistaaba waxa akhriyo jiray markaasuu oran jiray de war un buu sheegay ana intaan sheegay bal miisaama ka yagee war wanaagsan anjiraad buu nabiga ula iman jiray وكيل هيدي ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل الناس عن سبيل الله dadka waxa kamid ah qayb hadal baadil ay ibinaya ninkaas kamid aha waxa uu ku halaagsamay ninka isaga ah asxaabiga la oran jiray Miqdaad ibn al-Aswad ayaa soo qabtay maalintii Badr gacanta ku soo dhigay rasuulku gacanta u soo galay kaleey salaatu wasalaam qoorta ayaa laga jaray sida Ilaahay uga filaaday saasay noqotay min almustahziina bil habib sallallahu alayhi wasallam nimanka ku dheeleel jiray habibka waxa kamid ahaa Uqba ibn Abi Mu'ayd ninka la oran jiray oo nabigu u bixiyay qudaaru hadhihi al-umma halkii nabi Saalix ninkii qudaar la oran jiray Qudaar ibn Salif uu ka gowracay ashqal qawm ee qolada ugu guul darro badnaa ummadana kaasa ugu guul darro badnaa Uqba ibn Abi Mu'ayd in aad ugu dhib badan buu nabiga kaleey salaatu wasalaam isagoo Kacbada ku sujuudsan bay sheekaysteen kuwii munaafiqiintii waaweynayda halka reer Quraysheedo nabiga Kacbada ku sujuudsan meeyaan arwaan ninkee saaraya hasha baqtide halka taala mindhicirkeeda urku jirteeda intuu soo qaado kuma Maxamed dusha ka saaraya nimankii kale oo dhan way ka waabteen laakiin ashqal qawm ninkaas soo kacayo nabiga sujuudsan uuska iyo mindhicirka dusha ka saaray waatiinantiisa Faadimo rasuul bintu rasuul intay ka tuurtay ninkii uu kala tirinaysay wuxuu ahaa maalintii Badr awwalu masluub ninkii la daldalay ugu horeeyay buu ahaa lama cafee lama dhaafay halka ku tiiriyay uu nabiga la daldalo sida Ilaahay uga qaarajiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidaas uu ahaa Aswad ibn Abd Yaquth ayaa isaguna kamid ahaa markuu arko ninkaas asxaabtii nabiga kaleey salaatu wasalaam kuwoodii muuminiinta ahaa ee Maka joogay waqtiga waxba haysanin adoomaha iyo masaakiinta ahaa isagoo ku dheeldheelaya wuxuu oran jiray haulaa'i mulukul ard alladheena sayamlikuna mulka Kisra wa Qaysar reerahan waragan idin hor joogay yaryar meeshan maraya arwa ragii labada boqortooye waaweyn qabsan lahaa Kisra iyo Qaysar ragani ma sahlana macnaha wuxuu leeyahay Muhammad noocan uu ku sheegay inay Kisra iyo Qaysar xoreyn doonaan balaag waa kuwane way adduunyada xoreynaya noocan Soomaa arwa kuwa adduunyada xoreynaya waa nimankii adduunyada Ruushia iyo Mareykan qabsan laaba yimid iyadoo la yiraahdo kale ka dhigantay saasuu macnaha jeeskiisu ayaa uu ninka ahaa intuu nabiga subaxdii u yimaadaaba oran jiray war Muhammad saaka cirki ma waxba kala gaalama hadal bal xaqii cirka wax waray saaka kama imanin malaha maalin maalmaha kamid ah buu xeebtii kululayd intuu u baxay ayaa wajigiisa Ilaahay uu ku afragay wax madab la yiraahdo markii dambana infection iyo caabuq buu isu baxay oo malax ayaa dhaamiso sidii buu ku dhintay
المهم رقاسا كمدها وحين وجدنا من معجزات القرآن في القرآن من معجزات القرآن وحكمنا شيء إلهي وياهي كتاب كان أحديث إن سيدي لا أرك قليها سو إلهي لساسة ولعي دونا أرنكود أنا كاغا في اللان دونا تضباطا كي وقدرنا تضباطا كي سيدي كتجين وهي كل ماضي مركا وأرمها الدليل كوينوه كتاب كان قرآن كهرني مديسة هي حقني مديسة هي معجزني مديسة سورة النحل مكية وآياتها 28 و100 سورة اللحية طبعا هذا سورة النحل ليلة وبقولي سيدي الله باتن آيات سورة قدر بي كديرتها كوي هراء كوا كدن بي حقيقة أيو دولة هاي وقرآن كي سود دقي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كهر ودرامي كريسا مركا طابعي هذا يصل أيها الله يسو وحسب لكن سورة دني أي باع دير كل هذا أما سحال دير أي قوة رميسة ومدى أننا عالم ككل نول وحي لهاي عالم كانوا ينقصي إبر واقع قف أجيرتها أو دقيسته وإلهي إنه ستصه يمد كاين دي يدغ بيلدا waxa horteena yaala sawirka bixinaysa waxa weey inaynu ka dhigana kawnkan markaynu joogno dad guri ilaahay u dhisay casuumad ku diyaariyay ku jiraan oo loo sakhiray waxa guriga yaala inay cunaan oo la yiri adaab ku jooga adaab ku fadhiya adaab ku camira adaabna ku cuna casuumada taasay suuradu muuqaalkeedu waa noocaaway marka bilowga la dhaafaba waxaad arki doontaa dhowr iyo 30 arrimood oo diin iyo dunyaba leh oo waxay lahayd dadkan caalamka ku nool ugu deeqaya ayuu isku xidhiidhinaya cirka dhulka badaha bariga xayawaanka dhirta intoo dhanba marka arintaasi daraadeed culama u tafsiir waxa ay ku tilmaamaan in magacyadeeda suuradan uu ka mid noqon karo suuratu ni'am suurada nicmooyinka suuratu ni'am sida suuratu nahl ila nahliga laftiisa ay ka waramaysaaba nahliga waa shinida waa suurada shinida suuradii shinida ka waramaysa way هذه السورة التي يذكر فيها النحل سنيدا lagu sheegay marka suuratu ni'am ayaa loo bixiyo oo aad arki doonto muuqaalka cajiibka suuradaas nicmooyinka waxay ka soo horeysiisay oo aad arki doontaa nicmooyinku in sidan uu intoo la inagu sii aan la iskaga hadhaynina qiyaamo dambeeyo qiyaamadii baa Ilaahay ku bilaabay kadibna nicmooyinka uu ina siiyay buu ku xigsiiyay baad munaasabada labada ka dhaxaysa macnaheedu waxa weeyaan nicmadan marka aad haysato faraha badan waad ku ibtilaysanta waana lagugu eegayaa imtixaan nawaad mucarrad baad u tahay waad imtixaananta saadaradeed xisaabta iyo miisaanka iyo qiyaamaha iyo xasina ku daba yaalaan bal ka fiirsa isku dhaxilaaw nicmadaas sida macruufka ah nicmooyinkaas faraha badan waxa ay daliilu yihiin tawxiidka Ilaahay suuradu ay aad qaybteeda dambe uga warami doonto mar kale nicmooyinka soo celinaysa hadana nicmooyinkaas oo dhami waxay daliilu yihiin Ilaaha mun'imka ah hadhihi ni'ma nicmooyinkaas iskama iman gaalna ma keenin jinna ma keenin tabiicadina ma keenin laakiin nicmooyinkan mun'im bay leeyihiin Ilaah mun'ima ayaa bixiyay subhanahu wa ta'ala oo aynu bariyayno aynu leenahay siraat alladhina an'amta alayhim an'amtu maaha an'amna maaha laakiin an'amta Ilaahay adiga nicmooyinkaas marka tawxiidka Ilaahay bay daliilu tahay mun'imka ah ee maaragtay barwaaqadan dadka siiyay saadaradeed baa umuurta tawxiidka aad uga waramaysa ay amfaasha iyo tusaalayaasha ay leeyihiin waxa la caabudo nicmana hayn iyagu wax nicmaaha ay hayaan ma jiro makhluuqaadka qaar kamid waana la caabuday Ilaahay mun'imkaana way ka baydhay wuxuu ka dhigan tahay adiga oo laba qof halkan taagan mid hadiyad weyn ku siiyo oo dadku baan filaynin ba koow mid kalena uu ba iska ag taagan yahay oo isagu la yusminu wala yughni min juu' wuxuu hayaa aanu jirino iska faramaran kii ku siiyayna aad u dhagoolayso aad ka sii jeesato kii kale halkan taagnaa faraha marnaana aan waxba haynin aad tiraado waad mahadsantahay waxaad siisay
waxaanaad siisay ebelow waad ku mahadsantay hadda waa kii waxba ku siina faraamadhnaa ama wax kaa doonayayba adiga ku shaxaadayay kii wax ku siiya hadiyada weynna xaggiisiiba waad ka sii jeedsato waad mahadsantayna maad odhaninba qofka ilaahay wixii uu siiyo diin iyo dunyaba lahaa uga mahadnaqi waayey ee cid kaloo makhluuqa ama sanamaha uu caabudaya ku mahadiyey ee ku caabuday noocaas uu ka dhigay uu ka dareenayay uu ka sii liitaa saad kaa ula yaabaysa si ka weyn ula yaab kan qaybaha ugu dambeeya suuraddu waxay ka warramaysaa amhaal iyo tusaalayaal intii ay bixisay kadib asnaamta iyo tamaafiisha la caabudaya tusaalayaal intii ka bixisay kadib waxa ilaahay uu kusoo gabagabeynayaa asaaliibta dacwadda iyo habka quruxda badan ee qofka daaciga ahay diinta u faafinayo iyo marxaladaha dacwaddu ay soo marayso iyo waxay u baahan tahay mutatallabaadkeeda bismi illaahi araxmaani araxiim ataa amrullah ilaahay arrinkiisii baa yimide falaa tastacjiluu waxba ha dadajisanina subxaanahu ilaahay xumaan isagaa ka hufan wa tacaalaa wuu ka sarreeyaa camaa yushrikuun waxay la caabudayaan yunazilu lmalaa'ika ilaahay malaa'igtuu soo dejiyaa biruuxi waxyi buu u soo dhiibaa ayuu ku soo dejiyaa waxyigaasoo min amrihi kalaamkiisii ah calaa man yashaa cidda uu doonuu ku soo dejiyaa oo min cibaadihi addoomihiisa ahoo rasuul buu ka dhigaa an andiruu buu leeyahay rususha ah diga oo dadka u sheega annahu laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa ana aniga mooyaane fattaquun aniga iga cabsada khalaqa asamaawaati waalarda bilxaq samooyinka iyo dhulkaba ilaahay xaq buu ku abuuray tacaalaa ilaahay waxa uu ka sarreeyaa camaa yushrikuun waxay la caabudeen ay barbargeliyeen ilaahay waxba lama wadaagi karo lamana mid noqon karo saas weeyo ataa dee waa ficil maadi waxa laga warramayaana waa qiyaamadii soo socotay waxaynu nidhi ficilka maadi haddii lagu isticmaalo wax soo socda haadaa yadullu calaa taxaquqi wuquuci shay shaygaasi dhiciddiisu inay dhab tahay oon shaki ka jirin ayay tilmaamayaan leannahu lagama shakiyo waxa dhaca laguma murmaba dee hadduu shay dhaca lama idhaahdo wuu dhiciyo muu dhicin waabuu dhacayba kana waa noocaasoo kale ka murmayana nin waalandheh haddii shay tegay loo isticmaalo ficil mudaaricna macnihiisu waxa weeyaan istixdaaru suurati almaadi sawirkii waxaa tegay sawirkiisii oo hortaada la keenayo oo la leeyahay waa kan imakaba dhacaya daawo ama qalbiga kusoo xaadirso ataa amrullah ilaahay amarkiisii waaye waa imanaya waana dhab amarka ilaahay qiyaamadii dheh cadowga inuu adhaxda ka jabiyo dheh awliyadiisa inuu u hiliyo janno iyo naar xisaab iyo aakhiro ataa amrullah wax alla waxa qaybka ah ee mustaqbalka nusuustu ay ka warrantay ee aynu rumaysanayno taas weey اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقتربت الساعة وانشق القمر سبحانه وتعالى عما يشركون ده سيده الله يراهد قولوا سبحانه وتعالى عما يشركون إلهي انتنا الرماد ee soo socda yeelay uu yeelayaa kuma adkaanayso isbedelka soo socdana isbedelka kownkan ka jira isaga sameeyay waana looga marxaati furaya waxa diidanina waa yaryahay dabeecadu sugaya waa yaryahay waa gaalada laftigooda ilaahay isaga sidan kownkan waa abuuray bay leeyihiin laakiin wax kale bay barbar galinayaan marka uu ka nasahan yahay inuu wax la yeesho cid aan inta lahayn aakhira wax soo celinay adduunyada waxba maamula lahayn waa ka nasahan markastoo awood lagu sheegay ilaahay uu leeyahayba tasbiixdiisa iyo taxmiiddiisa iyo taqdiistiisa ammaantiisa la raacinaya subxaana ilaahay bayna barayata nicmooyinkii baa ilaahay uu bilaabo nicmadii kow ka ahayd baa lagu bilaabay marka nicmadii kow ka ahayd ee kama kacdada ahayd ee nicmo oo dhan aad ku bilaabi lahayd una dareemi lahayd sidaa ayaa ilaahay uu ku bilaabo waa nicmatu diin wa nicmatu alcaqiida wa nicmatu alwaxyi wa nicmatu alcilm wa nicmatu alcibaada intaasoo dhan aayaddaasaa sheegaysa ينزل الملائكة بالروح من أمره ملائكة بلاهي صادري وحو صادري بالروح روح ذو محايت هاي ووحيقة
وقرآنك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا هل كان بالروح من أمري وروح إلهي كلام كيسية وحا الله قلت المامية أما إلهي قلت المامين الروح يد لأنه يحيي الروح التي في الجسد جد آن قرآن لهين أو آن عقيدة لهين أو آن دين لهين أدوكو محاد قلت المامي لهين لو waxaynu ku tilmaamayna quraanka ay noo sheegay jirkaasi haba cadaado oo haba shishlaado oo muruqyo waaweyn hal ahaadee naftuna ha ku jirtee hadii aanu diin lahayn aqeedana lahayn cibaadana lahayn waxa ilaahay uu kaanahum khushubun musannada wa yaqulu tasma' liqawlihim wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim kaanahum khushubun musannada ninka iimaan laawaha ee gaalka ilaahay waxa uu leeyahay ninka hadii aad dhageysato afmisha aad buu mutakallim u yahay xagga hadalka jirkooduna wuu ku yaab gelinaya laakiin waa qorid la tiiriyay oo hoosta ka daloola oo qolfoofa quraanku waxa uu ku tilmaamay hadana inuu geeri yahayba marka quraanku wuxuu nooleeyaa ruuxda qofka ku jirta quluubtu nooleeyaa mujtamacu nooleeyaa nolosha lafteedu nooleeyaa qurxiya عدوا الضوء وكسود الشيء حاسدا يا رسولك صلى الله عليه وسلم نبي محمد على ما يشاء من عباده الله أعلم حيث يجعل رسالته في سورة الأنعام إلهي الله تلمامي ما رسالتي سماش ودقيقة يذا لفتقاد ودن كلا قول قد كأكتين ورسول الله إنه صادر إنه يسكت جنس النهاية والنبي محمد هذا كي عقل بطنا وغفة سنة وغفريت سنة إلهي إنه صادر وعوية والنعمين كي كجرت نعمة الرسالة أن أنذروا أنه لا إله إلا الله أنه لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا كنت المامس نعمة العقيدة ماشي إني ترتو عقيدة ونكسن أصل الرسالة هل كاسوكو فرديا فاتقون وعبادة على مرمانا إنه كقنعيو إلهي وحي ساسي علمي قاس إنه رسول كاسكو قنعيو in tawxiidkaasi qalbigaaga uu dego inaad bixiso midho la yiraahdo taqwa khalaqa samaawaati wal arda bil haqq wa awoodiisi muujinaysay mar hadduu caalamkaaba leeyahay inuu waxyi keenaa kuma adka waxa rabbi u baydha hadaba nicmooyinkii dunyada oo nicmada abuurkeena iyo khalqigeena habu abuurkeena quruxda badan نعمة كول لقى بلعبة نعمة وحي إلهي ونسيات دوننا لقو حكسية سيكال عطاين ودقنا نعمة ضدك هي نعمة الدنيا له نعمة أبور كوناكسن هي وحي إلهي ونقو عسومي أيها لك نحس خلق الإنسان من نطفة بني آدم كي وحي إلهي وكابوري أما المب بني آدم وكابوري من نطفة عن رف فإذا هو خصيم مبين waaba isaga oo doodayo isku dayeen wax alcadeeyo wal an'aama khalaqaha ni'moolaydi geeli arigi loodi wa abuuray lakum waxa idin ku sugnaaday fiiha ni'moolayda dif'un duksi wa manaafi'u dheefana waa kulleedii wa minha ta'kuluun xageeda hilibka cunaysa walakum waxa kulleedii fiiha ni'moolayda jamaalun قروح بين نعموليد يدينت حين تريحون مركا سوع رادين إيسان وحين تصرحون إيا مركا فوفين إيسان لوالوا وتحملوا نعموليد وحيدين قاد أثقالكم عليسكين إلى بلد دل حقي بيقاضي دل كاسو لم تكونوا أيضا هين بالغيه كوجارة إلا بشق الأنفس نفتين كريدا تور دبات سوغار مويان إن ربكم ضديه إلهين لرؤوف بالآدد كنا حريصنا ويان رحيم وأولادي سنون حريصنا يسكاها وكوا نعموينك مركاوه رئيس إنسان كان كبري حد كد بيا وحيلها وكأبو ري نطفة ولبا مراحل تاو مرياو مرحلة بدن مرتين نطفة والكي وهريسي كتبنا حنجر انت كتبنا حوغا مدقاء إلهي والله فويالي هلبكي السادية مروغية دي ساري
uma anshaanaahu khalqan aakhar ruuxna ilaahay uu geliyey qofkii oo dhammaystiran sidaa uu kaga soo saaray marka iyada laftigeedu waxaa lagu jeedinayaa indhahaaga nudfa halkii ugu yarayd baa lagaaga soo bilaabay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun bal hadda naftaada eeg marka caalamkan inta badan qur-aanku ummadda marka uu qancinaya itaaldarradeedana u muujinayo ilaahayna inay addoommo u noqdaan uu ogolaysiinayo caalamul arxaam caalamka riximka hooyada ayuu tusaale usoo qaadaa marar fada badan sidaa daraaddeed ayaa cajaa'ib fara badan ay leedahay cajaa'ib badan lagu arkayaa cilmiga ka warramaya abuurka insaanka caloosha hooyadii ilaahay uu ku abuuray mararka qaarkood waynu soo tilmaannay sheekha laydhaa cabdikariim zaydaane yamaniga ah oo ka warrama mucjisaadka qur-aanka in fara badan oo dabiib ahaa saydalaaniya ayaa waxau ihi mar baanu doodnay nin gaalada ka mid ahaa maraykana oo la odhan jiray marshal johnson ninkii cafwan cabdilmajiid zandani sheekhaa yamaniga ah cabdilmajiid haadaa wuxuu ihi ninkii waxaan u sheegay in qur-aanku uu ka warramay inuu qur-aanku ka warramay insaanka abuurkiisa inuu marxalada marayo candhuuftan iyo wasladan hilibka ah iyo seedahan iyo lafahan u yeelan iyo ruuxdan marxaladaha had iyo jeer cilmiga xadiidkaa ee casrigee la gaadhay uu si cad u sheegu ka markhaati furay inuu marxaladaha abuurka insaanku uu marayo inuu kitaabka kariimka iyo qur-aanku sheegayo ayaanu sheegay wuuli dabeed ninkii kursi uu ku fadhiyay buu ka kacay oo madaxuu qabsadaa wuxuu idhi ma qur-aankii maxamed la siiyee qur-aankii maxamed baa sidaa sheegaya markaasaan idhi wuuhi haa waayo aayadaan u sharxay oo aan u sheegay buuli kadibna de waa taa ilaahay maaragtay uu tilmaamayo maa lakum laa tarjuuna lilah aayaadkan ku akhriya waxaa ka mid aha buuhi maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaaran waqad khalaqakum adwaaran ilaahay wuxuu idin abuuray adwaaran idinka oo marxalada dabaqan can dabaq marxaladiiba marxaladda kale kusii xigto nakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin abuur kale ka dambeeya saasaan ugu sharxay buui dabeedna wuxuu ihi niyo saddex waa miduun saddex mid uun bay noqonaysaa inuu ninkan maxamed la yidhaahdo ee rasuulkiina ahi inuu haystay qalabkan iminka aynu isticmaalle mukabiraadka ah mijarka iyo microscopeka iyo waxaan la yidhaha cadasaadka qalabkan lagu isticmaalo taasi waa mid iska suuragala buuhi ta labaadna waxa weeyaan buuhi inuu iska waafaqay uun sudfa si kada ah oo waxaa sheegiddiisa uun uu iska waafaqay oo taasina qofku markuu warbixin samaynaya marmar buu isagoon macluumaad wixii u lahayn iska waafaqaa muwaafaqatulqadarka waa shayga la yidhaahdo kale ta saddexaadna waxa weeye buu in samada xaggeeda looga waxyooday oo uu rasuul ahaa saddexdaa midun waxaan ku ihi horta saddexdaa arrimood labaan kaaga jawaabaya ta u horraysa weeyaane qalabkan aad sheegtay iminka aynu isticmaalno casrigan dee adba waad ogtahay waqti ciddii ugu horraysay ikhtiraacday iyo baahiyaha uu leeyahay iyo inuu tasalsul galayo qalabkan la isticmaalaya wuxuu u baahan yahay warshad wuxuu u baahan yahay laydh wuxuu u baahan yahay intaasibana mid waliba wakhtigu soo bilaabmay dee adaaba ogsoon iyo khubaradii ku takhasusay iyo awal man ikhtarac ciddii ugu horraysay bilowday berigaa hore inaanu jirin qarniyadaana dee adba waad garanaysa soo kama markhaati furaysa haa tan kale sudfatanna dee sudfa waxaa la waafaqaa hal mar wixii mar ah ama laba ah 10 aayadood wax ka badan baanu kugu sheegaynaa iyo intaasoo xadiid dee miyay noqon kartaa waafaqid intabana waan ku tusi karaya maya buuri taas haddaba ta saddexaad ku daysa baan kuuhi taas saddexaad oo inuu rasuul ilaahay ahaa oo ilaahay addoommahan abuuray uu u waaxyooday taas saddexaad ku dayso sidaa daraaddeed baa dabeetna cajaa'ib badan laga sii warramay oo uu ka mid ahaa markaaseen dee wax
dabeecadna aan loo nisbayn karaynin qofka naftiisana aan loo nisbayn karayn insaan kalena aan loo nisbayn karayn waaya marka taana mararka qaarkood waataynu tusaalayaal ka soo qaadanayn nicmooleydii ilaahay wuxuu dhi anaa abuuray marka annicam wannacam annicam waa taa aynu soo waa jamcu nicma laakiin alancaam suuratu nacam haddii la odhan lahaa aw innacam waa nicmooleyda iyadu nacam bifatxi nuun geela adhiga lo-da kuwaa nicmooleydaas ayaa nacam laydha laakiin nicam waa jamcu nicma marka suuratu nacamna waa tahay oo nicmooleydii baa lagu sheegay suuratu nicamna waa tahay oo nicmooyinkii ka caamsanaa xoolaha ayay sheegaysa nicmooleydana aniga abuuray baa ilahay subxaana nicmooleyda inagu aad baynu u fahmaynaa min fadli illaahi tacaala calayna dheeraadka ilahay una siiye waxaa ka mid ah markaynu qur-aanka fahmayno dee waynu dhaqanaaba qofkii aan dhaqanna kolley waa daruuri si uu qur-aanka iyo nusuusta u fahmo inuu nicmooleyda kooley kooras ku qaato oo uu diraasad ku sameeyo oo u dhabagalo aanu ka faramadhnaanin nicmooyinka adaa tirinaya kow laba saddex hoostaad ka xariiqaysa fiiha difun lakum fiiha difun difigu waa maxay waa dugsiga waa la dugsanayaa wax fara badan oo had iyo jeer suufka iyo raanta iyo dhogorta nicmooleyda laga soo jaraa koodharhka ugu dugsoon iyo qalabka dhaxanta laga isticmaalo waxa laga jaraa nicmooleyda laga jaraa oo laga soo saaraa dee innagana waa macruuf hadiyo jeer xoolu marka ay dhogor goynayaan inagu dee maba xaalaynabe hadii la isdhaa 100ka halaadee dhogor goynaya iyo 200 ama 300 ida ah ee dhogor goynaya dhogortooda ha la ururiyo dad badan bay anfici lahaayeen laakiin taasi nooma bilowno oo wax la isku hagaajiyaaba way nagu yaryahay sida ilaahay uu ku abuurun baynu daasada u tumaynaayo inagu dabada aynu ka wadnaa laakiin wax kale kuma soo biirinoo badan difigu waa dugsiga ومنافع دافونا دوي بدين دافت حوله دافت حولها قار كمذا إلهي وحسوه حوله ومنها تأكلون يلا وحكا عنيس هيلب كيدي با لعنيا راشنكي لعقتي دا ايا لعنيا منافع لنافك حولها ديوا غران كرينا انغو سيده فرا بدنتا waa inaga tilmaana dadkeenuna inuu xoolo dhaqato u badan yahay dakhligeenuna inuu badan yahay xoolaha aynu dhaqayno qofka xoolaha aad u yaqaana si gaar ah ilaahay ishiisa ugu jeediyay bal hada nicmooyinkaas inay u sii muuqdaan walakum fiha jamaalun hiina turihuna wa hiina tasrahun qurux baa ku leedihiin xoolaha marka caraabinaysaan iyo marka foofinaysaan qurux oo asalkeedaba de qofka xoolo lehina waa asturan yahay oo waa qurux bay tahay moodiyo noolba moodkuna waa noolkuna waa xoolahan moodkuna waa kaashka marka qofka deynta ka qaawana faqiirka ahayna quruxdii adduunyadu waa ka maqanta marka qof ay amaanayaan Soomaalidu waxay yiraahdeen ka hebel saddexda meersiba waa foofiyaa saddexda meers geeriya arig iyo looda hadii gamaanka lagu darayana fardaha la fulo lagu darayana afarta meersiba la yiraahdo afarta meersiba waa foofiyaa ninka arrinkiisu waa qurux buu leeyahay way bariga hore Soomaalida waxa leeyahay ku deegaal aad u dhaqan jiray marka dharka kamay day jirin quruxda geelay quruxda ka day jiray marka ninku intuu qura guntado tima dheerna la baxo oo saqafta ayaa waxa ku feero isagoo iska feera qaawan ayuu geela dhex taagnaan jiray ama bacadku isu dhigi jiray bacadku fariisan jiray ninka 100 halaad iyo wixii ka badan leh markaas la oran jiray baro bacadka ka kac inaad geel badana tahay waa lagu arkay yad qisada maqashay inaad geel badana tahay lagu aragay qurux leh waar bacadka iskaga kacba la oran jiray waaya labada arrimood marka la foofinayo iyo marka la soo caraabinayo aayadu waxay horeysiisay xagga quruxda ayna xoolaha ka helayno goorma marka la soo caraabinayo
marka la soo caraabinayaa la horreysay adigu ummadaad u yara fikirta waxa oran lahayd war armaa sii socodka iyo soo socodka uu fiicnaan lahaa hee sii socodka in la horreysiiyo soo socodkana la dambaysiiyo go'an baaga inta badan dee googaa la hor sheegaa war armaa sii socodka ay ku fiicnayd in la sheego soo socodkii baa laga bilaabay xiina turixuun marka soo caraabinaysaanna qurux baa ka helaysaan marka sii foofinaysaanna foof iyo caraaba leh sidaasay tahay saa ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala neefka xoolahahay wuxuu qurux badan yahay qofka wata iyo reer kale uu qurux badan yahay qofkii raacay waa garanayaa wakhtiga uu neefka soo caraabinayo waa neefkiioo dibiray oo gashi leh oo geeliina ama uu durdurinayo ama afdhuubyaalaynayo loodii iyo adhigiina ama ay faranfardaynayaan ama birinbirqaynayaan intaba waa la yidhaahdaa oo neefkaasi waa farqaadayo dabeedna markaasoo kale ciyaalka iyo looma dira waabuu isla jiidhayaaba marka waxaa la yidhahdaa maasha allah xooluhu gashi bay leeyihiin nadal bay leeyihiin aad bay qurux badan yihiin wakhtigaasi wuu ka farxinayaa waqtiyada hadiyo jeer shaydaanku uu dhex galo qofka ee uu idhaahdo xooluhu waa xoolahaagii ee kuwii ilaahay baanu odhanna waa kuwaygu idhaahdo waaya si gaar ah waxaa ilaahay u tilmaamay geela geedka la idhaahdo ama awrka wataxmilu ahqaalakum ilaa baladin lam takunuu baaliqiihi ilaa bishiqi lanfus ahqaal waxaa ku qaadaan culayskiinna waxallo wixii idin cuslaynaya caruurtiinnii iyo agabkiinnii iyo adduunkiinni iyo idinka laftiinna waxoo dhan waa wada culays gaadiidkaasaa saartaan dal baa u saartaan fog oo aydaan gaadheen naftiinnoo dhibaata ay ku dhacda mooyaane saasaa ilahay u tilmaamay subxaana waa geeli weeye si gaara ilaahay u calaamadiyo waxau idhi wa ila alibili kayfa khuliqat miyaanay eegin geelii sidii loo abuuray falaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat marka khalqigiisa qolada saynisku waa kuwa ka warrama si gaaray uga warramaan oo aanay xataa xoolaha kale uga warramin khalqigiisa iyo cajaa'ibta uu leeyahay sidaa aayad gaarka ah ee u xusta oo looga soo qabtay xoolihii kale ayaa cilmiga xadiidka ina uu ka markhaati furayaa dheeraad badan oo geelu le iyadoo ilaahay nicmoolayda uu xusayba haddana geeli si gaara sida suuradda sabixismo ku jirta aayaddaa ku jirta oo kale ay sheegaysa si gaara lagu cayimay markaasaa dabeetana acdaa'adiisa xubnihiisa iyo sawirka uu geelu leeyahay iyo culayska uu qaaday iyo masaafadda uu jaro iyo caanihiisa iyo mid walba dheeraad bay ku tilmaamaan misale waxay ka warramaan indhihiisa bay dhaha indhihiisa geela waa sidan bahalkan la ydhaa microscope oo kale oo wixii yarna wuu weyneeyaa ishiisaas wixii dheerna wuu soo dhoweeyaa ishiisaas saa daraaddeed baa qofkii muddada dheer dhex joogay isaguba gudcurka indhihiisu ay maaragtay aada waxu arkayeen ee dhallinyarada ahaa geelu halku libaaxa ka arkaya ama bahalka ma ka arki karo masaafad aada u dheer buu ka arkaya leannahu biidni illaahi tacaala ishiisii way soo dhoweynaysa wixii durugsanaa wixii yaraana way weynaynaysa waa sirta ku jirta in uu ilmo yari hogaamin karo neef aada u weyn awrkii aadka u xooga weynaa ilmo yar baa hogaaminaya markaasuu garqaad buu yeelanaya aada u weyn biidni illaahi tacaala ilmahaa yari qof weynunbuu u noqonayaa saa ilaahay uhi wadallalnaaha lahum waanu idiin sakhirnay xoolahan wax ku qaadanaysaa min taskhiir illaahi tacaala ay ka mid tahay ishiisu kan yar inay weynaynayso qof weyn oo uu ka haybadaysta uu noqonayo dibnihiisa oo adiga arko qodaxdaasuu ku isticmaalaya qodaxdaasoo aanay mudaynina qudadka iyo qanjidhada iyo muruqyada ku jira intaba ilaahay u sahlay neefkani waxyaabaha uu kaga fiican yahay nicmoolayda kale waxaa ka mid ah xagga saxraaga saxraagu dee inaga shibu saxraa wey dhulkeena saxraa maynaan arage saxraaga duufaano iyo quruurux iyo dabayle iyo riix masmuumahoo khatar badan ayaa ka dhacday ilaa caalamka meelaha qaarkood aan laba deginba saa daraaddeed baa ilaahay dhegihiisa iyo sankiisa iyo dabadiisa intuba iyo cagtiisa intuba waxay u sallaxan yihiin inuu ku noolaado dabeecadda saxraaga oo aanay ku noolaan karin wixii qooblayda ah ama sidaas aan u diyaarsanayn aanay ku noolaan karin maal qawaa'imkiisa cagahan uu ku taagan yahay buushash baa ilaahay u sameeyey subxaana wa tacaala buushash dhulka diisaya culayskiisa aan waxba yeelaynin aan murxanaynin
saxaraaga uu ku socon karaya muddo dheer oo qooblaydu neefka qoobka leh sida faraska iyo dameerka iyo looday aanay ku socon karayn waxa la yiraahdaa meelahan kale mafaasisha sida lawiyada iyo dhulka uu laabayo ilmaha yar waxa uu ku soo dhalanayaa iyadoo jirkiisu uu ka adag yahay neefka weyn markuu noqdana uu sii koraya wax ilaahay u diyaariyay way culayskaas si markuu halkaas dhigo aanay u murxin qawaayinkiisa iyo adimadiisa bidin ilaahi tacaala ilaahay waa dhaadheereeyay waxyaabo badan bay ka faa'iideeyeen eerayntaasi inay qubaarkii iyo boodhkii iyo kulaylkii kor uga qaado tallaabadii uu qaadayay iyaduna inay noqoto mid sariic ahoo ilaa wax raafa yaryaroo gaaban adimadiisu gaabanayna wax adima dhaadheeri ninka dheer iyo ninka gaabanimo la isku tallaabo maahe waaya qoorta oo kale ayaa waxay tilmaamayaan in xikmadan ilaahay u dheereeyay marka laga yimaado daaqa iyo saloolashada meesha dheer uu saloolanaya haddana socodkiisa iyo culayska uu qaadaya qayb ay ka tahay haddaanu qoortaa lahayn culayska intaa leeg hinqashada uu la hinqanayo qayb bay ka tahay qoortiisaa dheeri ilaahay idamkii masaafada uu socdo 50 kilomitir ilaa 60 kilomitir maalintii ayaa lagu tilmaamaa geela caadiga ah waliba saxaraaga uu mari karo geela al-ibil al-mudammara geela la carbiye ee boga laalan waa ka quraanka de ilaahay ku tilmaamayo yaatiina waadin fi an-nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damir yaatiina min kulli fajjin amiq jiha kasto aad u fog damir waa neefka boga laalan ee la soo carbiyay xoolahan lagu tartamaynta maaragtay aad aragtay ee malabka iyo raashinka kooban la siiyay ee caloosha weyn laga ilaaliyo isagu wuxuu socon karaa bay 150 kilomitir 12 saacadood waa masaafada aad iyo aad u dheer umuuman manaaficdiisuna aad bay u badan tahay oo sida ilaahayba uu tilmaamay waa manaaficu wa minha taakuluun manaaficdiisa xasbuk waxaba kaaga filanba in uu ilaahay si gaar ah u calaamadiyay si gaar ah u tilmaamay si gaar ah u dhiiriyay marka la tegayo goobaha muqaddaska lagu soo cibaadaysanayo walbudna jacalnaaha lakum min shacaa'irillah lakum fiiha khayr albudn geela si gaar ah ilaahay u calaamadiyay aktham ninka la yiraahdo wuxuu wargeelaha caayina wareegiyo geelaha caayina laba arrimood oo faa'iidooyin ah waaweyn ayaa uu leeyahay buudi tan isagu kuma uu darin marka aynu aayada u soo qaadanay war waa wax ragna ku kala samra buudi gabadh wanaagsanna lagu helo ruquu dam wa mahrul kariima gabadh wanaagsan meherkeedna weey qofka bani aadamka ah ee wax laga dilay marka la samirsiinayana isaga ayay shariicadeenu cayintay loo yaari toona ma cayimin loo yaariga marka dambe halba loo rogo qiimaha iyo kaasha loo rogo laakiin waa intaas oo halaad qud iyo qoomba di qofkii la dilo rag iyo dumarba iyo hadii ay noqoto qoontiisiiba geel baa wax lagu qiimeynaya mar walba rate-ka uu marayo iyo qiimaha uu leeyahay saylada caalamka ka Yurub jooga waa inuu sayladeena waraysto halkaas laga qiyaasaya ariyaanaha nimankii geelayaasha ahaa wama harin ammaan inay sakada ka bixiyaan mooyaan inay ilaahay ugu mahadnaqaan sakadana ka bixiyaan taasa maaragtay hadhay caaniisa laftigeeda waa kuwa ka waramaya inuu maaragtay fawaid badan ay leeyihiin oo kansalkii ay dawo ka noqdeen hilibkiisa laftiisa cholesterolkiisa yar yahay oo calaaliskiisu ma malaku alaga gaaladuna oo bayna u qabsan lahaayeenbe nicmoolaydaas ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida u tilmaamay إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والخيل هل كهري كعطفنته والأنعام خلقها إلهي نعموليدي وأبوري والخيل فرضهنا وأبوري والبغال بقولك بقش بقلهنا وأبوري والحمير دميرهنا وأبوري لتركبوها سياو فوشان وزينة يقرح لبضبا ويخلق ما لا تعلمون ويخلق وحو أبوريا ما لا تعلمون وحيدان قرني نعموينك إلهي وحكمنا نعمة الله حديد حق إمكانياتك الله إسو صعدك ضدك أي سي مارتي إسكارسين وقول قطاع مواصلاتك وحن الله يرحم قيب هذه أدوي بين نعموينك واوين هلكو قفك وسعنا يمرك أولوغيو
dee laga yaabo 10 maalmood hadduu maalin u soconayo waa nicmo weyn oo ilaahay loogu mahadnaqo fadli weyn weyn marka kuwani fardihii iyo buquulkii iyo dameerihii ilaahay baa abuuray iyagana waxa la tilmaamay marka laba arrimood oo inay leeyihiin faa'iido ah fuulitaanka la fuulayo iyo qofka laftiisa iyo sharaf ay u yihiin labadaba culimada fiqiga qaarkood baa waxay yidhaahdeen war dee buquulkan iyo bahashan lama cuno dameeraha midna faraskiina waa tan waa la raaciyay aayaddu waxay daliil u noqon kartaa faraska inaan la cunayn hilibkiisa maadaama liiskii kuwa la cunaya lagu daray liiskii kuwa lagu xaragoonayo la fuulayo in lagu daray buquulkii iyo dameerkii halkaa waxa aayadaasi daliil u tahay inaan faraska hilibkiisa la cunaynin qowlkaa aayaddu si caamay u hadashay waxa si khaasa u waramaya xadiidka saxiixa ah ee rasuulka ka soo arooray sallallahu alayhi wasallam ee tilmaamaya waa xadiid dhowr ah tilmaamaya fardaha iyo buquulkuna inay xaraam yihiin bahalkan faraskuna inuu xalaal yahay faraskuna muruq iyo weyne muuqmad weyn baa laga goosan karaa isaga Soomaalidu wuxuu yiraahdaa war waa gamaan saddexdan la isku cadf faraska iyo dameerka iyo buquulku ilka sare ay leeyihiinoo dadkuna ku darbeeyaan wixii ilka sare dhan laba cuna beeyaan halkaas iyaguna wax ku tiiriyeen faraska marka la yiraahdo waa xalaal waxay koodhan soo ku sheekh ilka sare leh oo yaa ilka sare wax diidaadeen faraska waa nicmo ilaahay marka mana diidayso hadii lagu daray liiskan imika amaanta uu qofku ku yeelanayo maaragtay fuulidiisa iyo quruxda labadaba ah tii kuwan kalena uu ku jira xadiidka ku daraysna mar walbana waxayna xukumaya aqli maaha waa naska daliilka ayaa inaga inahagaya waayahay laba madhab baa ku tagaa filay Abu Hanifa iyo Malik ayaa ku tagay fardaha hilibkoodu inaanu xalaal ahayn Ahmed ibn Hanbal iyo Shaafici iyo sunnaha aad ugu dhawaa iyo jumhuurul ulama culimada islaamku say u badan yihiin oo dhan aayadu waa caam xadiidka khaaska ah ayaa tilmaamaya مثلا بهلك أوردن وحي معله ولا ديده hilibkiisa in la cuno oo xaraan wixii micida ku ugaarsadaa isla waraaba bahalkan aan harimaadka libaaxa shabeelka gududana waxa noocaas oo laakiin si gaar ah xadiidku wuxuu uga soo reebay dabuca qaybta la yiraahdo waraabaha iyo wixii la noocaas waraabaha iyo gol waraabaha iyo kuwa dabuca xadiid baa ka soo reebay marka nasku baa lagu xisaabtamaya siina quruxbana waaye qofku marka uu lugaynayo afantariga uu yahay lugaynaya marka uu yahay qof fardoolaya akala xaraga roon inna boorka lagu qasaya ninna deejaantu soo jiidaya inba inankiisii ula taliyo wuxuu aabba hadii aad xoolo doonayso xamara agjo hadaad xiila doonaysana xamara agjo hadaad xurmo doonaysana xamara agjo macnaha wuxuu u jeedaa faraskii dhiinka ahaa ee Soomaaliyeed barigi hore aadka ay amaana jireen hadaad ka haysato de xoolana waa geel baaba lagu sarifi karaya fara badan inana waa lagu siin karaya waa xilo xurmana uu leeyo ziina de nin faras ku taagan oo haybad leh iyo nin kale oo halkan de lugaynaya sibay u yara kala duwan ilaahay baa wuxuu raaciyay wa yakhluqu ma la ta'lamun waxaydan garanaynin waa abuuraya ijmaalka iyo duubkaas ilaahay u sheegay waa wax la fuulo quruxna leh laakiin waqtiga aan jirin iman doono waqtiga aayadku ay soo degayeen kadib waxaan u malaynayaa ka in si weyn aynu garan karayno baabuurtii iyo tareenadii iyo diyaaradihii ilaa dayax gacmeedkii kuwa alla wixii la fuulo horta dee gaadiid ahaan loo isticmaalo dheh wa yakhluqu ma la ta'lamun ilaahay xigmadiisu saasay keentay inaan loo sii sharxin dadka waxa iman doona ee la isticmaalayo gaadiid ahaan aakhiru zamaanka loo isticmaalayo bal ka waran imika hadii diyaaradda loo sii sharxi lahaa dadka hadii diyaaradda loo sii sharxi lahaa ama gaarigaba ama tareenkaba oo la odhan lahaa saasi mid caynkaas baa jira dee way dadka qaarkood baaba waxay ka dhigan lahayn waxay quraanka ku duraan ayay ka dhigan lahayn ma wuxuu sheegaya in hawada la mari karo oo la duuri karo maantana inooga warramaya ilaa kii qaar islaamay baa ku gaaloobay markii nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuul ilaahay mucjisaad leh laylatul israa wal mi'raaj habeenkii caalamka kore la geeyay waxay ka dafireenay diideen qudus baan xalay tagay si guura galoon soo guura galay kawar marka saasa waxna laga yaabaa waqtiga dambena waxaynaan imika haynin in la arki doono sida wax la wadwado ilaahay wadiisu waata
وعلى الله ربي دوشي سوى هذا قصد السبيل بيان قصد السبيل جدك توصن عدايه ومنها جائر جدتك وحكم إذا مدق الله عنه ولو شاء لهداكم أجمعين أدو دون يدما أنتم بإلهي ذن هنون لها هو الذي وإلهي أنزل من السماء ماء بيو حق كرك سودتي منه شراب وحبيها أكه ليسان قيب عبتانا واي معاكم حقا لكم منه شجر كتاب متن قيده ويقى يركب حاشد أيقا مغانا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم وحيدين سقنا منه بيها شراب عبتان ومنه شجر وحا كصوب حي حقيس جيد فيه تصيمون حولها طاجنيسان شجر جيد بحي حولها طاجسان ينبت لكم به الزرع إلهي وحيدين كسو صار يا سرعه وفريدي أي نعنين مراهي ندف سنين وي والزيتون يكي إيدامك كوسارت إيدامك لقيه ليه وحلقو تفنك والنخيل يجي تمراتك والأعناب يعنبك مراها لقى عني ومن كل الثمرات يمر أردن إن في ذلك لآية أرنتا على مدوين باكسوغا لقوم يتفكرون ضد فكرة يبا إلهي سبحانه وعلى الله قصد السبيل الله يدوشي سوحا هذا جدك توصن سيدو يحيى وحوين عديو وحو إلهي إسساري ضد كان سياني قاركودنا عذردارية مرمرسية وهلين وضد توصن عديو وضد قلو عنا عديو وانو عديو إلهي ذا وحو وهديناه النجدين لبدي وضانو كلا هديناه وحوي وانو كلا تسنوي وانو كلا عدين كاسوا وضد خيرك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أقاسيكم شيئين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا مركب بيان قصد السبيل ودد توصل إلهي بعده ومنها جائر ودوينك وحكم إذا من قلوا عن أقادا كتوصلنا إلهي بكو قارسينيا كقلوا عنا إلهي بكو بالمرينيا قف إلهي سيغينا وعلى فلاوه الدنيا آخرة مركب سداسي waxaad halkaa ka fahamtay cilmiga ilaahay uu ina siiyey waa kayna baraya ilaahay waa kayna baraya nicmooyinkiisa waa kayna baraya aakhiro cilmi waa laga maarmaan xaq in la barto iyo diinta waa laga maarmaan waxiga in la barto aqliga aan qofku aqligiisa xukumina waxigu xukuma waa laga maarmaan nicmooyinka ilaahay duu ilaahay doonayo dhamaantiin waa hanuunin laha laakiin ilaahay awoodiisa qudradiisa waxay keentay dadku inuu saa u qaybsano awoodaha ilaahay waxa kamid xaga korubiya ka soo dajiye biiba lacabaya minhu sharab qayb ay abitana afara'aytum almaa alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzn am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan qaraad baan ka dhigi lahaa ilaahay hadaan doonayo biyaha daruurta kasoo degay qaraar baan ka dhigi lahaa aydan dhadhamin karteen marka cabitaanku waa nolosha qaybta koobaad weey sababta intaan nadaafad iyo duunya waxay cabtay la gaarin afka maxaa loo cabaa jidiinka maxaa lagu qaboojiyaa jidiinkii jabay halkaas maaragtay marka sharaab doo adiga arkaya maanta waxyaabii ugu qaalisanaabay biyi ku beereen waxa la hadalhayaa waa biyo waxa la hadalhayaa waa booyad waryaareen hay'adii booyadii ma soo wada war xagay booyad ka helnaa halkaasay maraysay booyada ilaahay la bariyo booyada ilaahay baa meel walba waraabinaysa allahumma aqifna in lagu celceliyo waqtiyada ducada la aqbalo biidin ilaahi tacaala waa rajaynayna inuu inoo shubo madarkiisa fadligiisa yadoona camalkeena inoo eegin huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmat marka ay quusteen ilaahay waa ilaaha soo dajiyo roobka markay ka quusteen cid walba shisheeye iyo sokeeyaba makhluuq oo dhan kolkay ka quustaan ay yiraahdaan gacmaha saa rogaanaya finish kolkaas roobka ilaahay u dhow yahay markaas roobka soo dhow ومنه شجر فيه تصيمون جيد حولو داقان ها أدي dadku wixii uu cunayay helay laakiin duunyada aynu ku noolayn inaga duunyada ay noo sakhiran iyadana dhirta u sii sakhiran dadka qaar kood bay isku daba rogtayo
u qaatay inaanay dunyada u sakhirnayna daaqu u sakhiran sida iyo inagiiba ilaahay noo sakhiray iyada markaasaa iyadiina daaqa loo sii sakhiray markaasay qaarkood moodeen in daaqu noo sakhirayo dunyadu dar inala mida ay tahay oo aan la cuni karaynin iyadu waa kuwa khudradleyda la yidhaahdo la xooli waa kuwa halkaa iska taag sarcu ilaahay ku soo saara saytuunka nakhiisha acnaabta iyo midho oo dhan waxay isugu jiraan saddexda arrimood saddexda baahida bani aadam ku xidhanta sarac la yidhi waa wixii raashinnimo loo cunayay waa shayga laga bixiyo sekada naskuna saas u horraysiiyey maxaa sekada looga bixinaya sekada waxa laga bixiyaa wixii firiya arugurka arabakida bariiska wixii firiyahee macnaha midha adadaga kayd geli kara baahida bani aadamka u badan waa wax kayd geli kara iyo idikhaar sidaa ilaahayba u horraysiiyey baahiduna ugu badanta saytuunku waxa weeyaan keenna nimankee macaane dee urtale jawaafa la ydhaha kaa maaha waa saliidi wey zaytuun washajaratan takhruju min duuri saynaa tambutu biduhni wa sibqin lilaakiliin waa geedkaas baxaya ilaahay halkaana ku badiye ku barakabada badan duursiina tambutu biduhni wa sibqin lilaakiliin labada arrimoodba faa'iidadeeday leeyihin wuxuu soo saaraa duhni wax lagu dhaashado jidhka iyo wejiga iyo madaxa lagu dhaashado wa sibqin lilaakiliin dadka cunayana iidaan buu u yahay bal raashin qaraxa iyo mid iidaan lihi ma isku itaalbaa maya hudheelka markaad dalbanayso waa kala qiimo kii iidaanka lahaa iyo kii qarax ahaa waa kala qiimo saasay halkana kala qiimo u yihiinoo zaytuunkii baa lagu raacay bal ka war haddaad raashinkii hesho oo iidaankii lagugu daro oo fruudkii iyo midhihiina lagu raaciyo hadiyo jeer marka dee casuumadu dhammaystiran tahay waar fruudkii meebaa la yidhaahdaa midhihii u dambeeyey maya midhihii iyo sharaabkii marka sharaabkii iyo khudradii dhammaystiraya cunnada ee aada u sii buuxinaya waa kuwan walnakhiila walacnaab wa min kulli thamaraat waa casiiraadkii iyo khudradii ilaahay baa intaasoo dhan isku qoofalayoo dee aayaadka liqawmi yatafakkaruun arrintan iska daldal iyo iska cun uma baahna ee eegid bay u baahantay eegid bilowgeeda dhexdeeda dhammaadkeeda intaba u fiirso ilaahay ugu mahadnaq markaad beerayso kuu baxo markaad soo goynayso marka aad cunayso marka wixii caloosha ku jiray uu kusoo dhaafiyo hadduu doono wuu kugu qufuli lahaa markaasaa dhakhtar ku waalan lahayd wax kaa jeexa aad weyle hadduu kugu hilo ka warran waxalla wixii aad khudrad iyo raashin iyo duhni cuntay hadduu dhanna kuu dhaaf waayo kaadi walaa saxaro yaa kuu gurmanaya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala intaasoo arrimood isdaba dhigado waxa weeyaan liqawmin yatafakkaruun waa dad fikiraya wasahara lakum alleyla waannahaar habeenkiiyo maalintiibuu ilaahay idiin sakhiray waashamsa waalqamar qoraxdiiyo dayaxiina wuu sakhiray waalnujuum xidigihiina musakharaatun biamri ilaahay amarkiisa ayay ku sahlan yihin iyo awooddiisa inna fii dalika la aayaat arrimaha calaamooyin baa ugu sugan liqowmi yacqiluun dad caqli leh wamaa shayna waa abuura ilaahay macnaa aayad baa ku sugan fii maa shay ay aayada ku sugantay dara'a lakum fi lard dhulka uu idinku abuuray mukhtalifan alwaanu iyadoo midabadiisu ay kala duwan yihin inna fii dalika la aaya arrintaa calaamaa ku sugan liqowmin yadakkaruun dad waantoobaya waa kuwa nicmooyinkii ilaahay waxa sakhiran habeenkii iyo maalinta qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha macnaha fahamka dadku unbaa u sii kala dhow ama baxhiga iyo awoodda cilmiga ah ayuunbaa si ay dadku kusii kala dheeraad leeyihiine laakiin qof bilowa iyo qof aqoonle iyo qof maxaanku dhaha miyiya iyo qof magaalaha mid waliba wuu ka garaabi karayaa wakhtigan iyo meerayaashani siday inoogu sakhiran yihiin mid walbana way u muuqanaysa midibana inunbuu ka sheegayaa mid wuxuu ku dareemi karayaa fidradiisa iyo abuurkiisa caadiga iyo bixaasati lbasar isha araggeeda iyo aqoonta uu ilaahay siiyey buu ku dareemi karayaa la arkaya mushaahadka ah dee qofkii ciddii dheeraada samaysayna waxyaabaa cajaa'ibkaee meerayaasha kasii muuqanaya iyo zamanka iyadana wuxuuna kasii markhaati furayaan awoodda ilaahay iyo nicmadeeda ayay ka markhaati furayaan waxa kaloo aayadi ku sugantay maa dara'a lakum fi lardi mukhtalifan alwaanu xayawaanada dhulka uu ku faafiyey daraa waa wax uu faafiyey oo
inaga uu noo faafiyo inoo sakhiray oo midabadiisu kala duwan yihiin awalan waa xayawaanaadka kuwan la soo sheegay oo qura ma ahade intee xayawaan badda jooga oo bariga jooga bal xayawaanka siduu ilaahay abuuray iyo sida uu hanuuniyay hadday tahay ubadkiisa sida uu dhalay iyo sida uu u korinayo iyo sida uu difaacay arsaaqada sida uu doonanayo iyo awoodda xayawaanaadka iyo xataa habo abuurkooda kii ugaarsanaya ee muftariska ah waxa ilaahay uu sameeyay awood dheeraad ah oo gaar ah oo u diyaariyay xayawaanada muftariska libaaxiya wixii la mid ah miciyahooda iyo cidiyahooda waxay u diyaarsan yihiin habka iftiraaska iyo ugaarsiga ay u diyaarsan oo ilaahay u salax miisaankooda ka duwan ka xayawaanka halka shimbirta lafteedu ay ka duwan tahay lafaha xayawaanka kale sida dayuurada iyo loo kala duwan gaarigaba suba kala fududa lafaha shimbirtuna waxa la tilmaamayaa inay yihiin qaar aad u khafiif sida baldacarku fudud yahay oo kale si ay u duuli karto halka kan ilaahay miisaankiisa uu ka dhigay mid cufan oo wax ku dili karo xayawaanada daaqa cunaya ee nicmooleydeennu ay ka mid tahay ilkaheedii iyo afkeedii iyo carabkeedii bay ilaahay wuxuu u sallaxay say daaqa u cuni lahayd shimbiraha ka wax ugaarsanaya dee afkiisu adiga arka waa soo qalooca cidihiisuna waa u diyaarsan yihin ka kale laakiin biyaha iska dhuuqaya hadhuurka iska cunaya isagana xaaladiisu waa gaar bal hadda kaa laftiisa abuurkiisuna eeg muu mudan yahay inuu inoo sakhiran yahayna waa arrin kale oo eegid iyaduna u baahan aayadda waxaad eegaysa tartiibta iska akhriyuna aayad walba gebagabadeedana eeg marka hore ilaahay muxuu ihi liqawmin yadakkaruun maxaa kusii xiga xagga dambena lacallakum tahtaduun walacallakum tashkuruun walacallakum tahtaduun saasay isu daba socotaayo awalan natafakar fii makhluuqaati illaah makhluuqad ilaahay baynu horta ka fikirayna waxaa laynoo sheegayoo dhan uma natadakar dabeetana waynu waantoobaynaayo qofku waa in miirku usoo noqdaayo uu ku degaa awoodda ilaahay kadib waa inuu mahadnaqa alxamdu lilah ilaah awooddaa leh kadib lacallakum tahtaduun waa inuu hanuunaa saasaa midiba mid la doonaya qofka siduu ilaahay ugu talagalay in waxaan loo sheegayaa u kala ratibmaan inuu fikiro inuu waantoobo inuu mahadnaqo inuu hanuuno intaasoo dhan baa isdaba yaala qofka akhriyaya oo intaan waxba u kordhinaynin xikmadiiba muu garanba allah ina garansiiyo wallahu subxana wataala ورتل خاشعا متغنيا بأعجب الألحان والآيات